gudahaan waxaa la joojiyay jaadkii soo galayay gudaha magaalada Mandheera. Jaadkan ayaa la joojiyay cabsi laga qabo cudurka coronavirus ee loo yaqaan COVID-19. Waxaa jaadkan la joojiyay si weyn ku soo horjeetay dadka ku shaqeynayay waxayna sheegeen in jaadka la joojiyay ay tahay arin aad loogu xumaado. Bismillahirrahmanirrahiim. Wacyiga Waalin Cabdullaahi waxaan ka soo hadlayaa magaalada county Mandheera. marka waxaan maqlay qaadka in la joojin rabo sababta loo joojinayo inay tahay coronavirus oo cudur ilaahay keenay waaye qaadka ma keenin oo bini'aadankana ma keenin waa wax xaq ilaahay ka imaaday markiis hore wuxuu nooga imaaday kor wadamaha kor China uu nooga imaaday haddana Kenya waa soo gaar hadda leeyahay anaga taa muhiimna cadeyn maayna in hata lacag lagu rabo hata ma sheegi karna marka anaga waxaan nahay qof oo qaad ka shaqeysanaya qaadka ilmaha ku korsanaa waa ku sii jeedni oo wiligiis alla inta qaadka aan gadayn dad ma dhibin ilmaha ku biilanaa dad ilmo soo korsanaya nani ilmaha abada naga waramo marka qaadka hadda waxaan maqlayaa qaadka hadii la joojiyo cudurku inuu sii faafi doono waa sabab nin hadda ka hor xanuunsaday oo nin weyn ahaa oo qaad cuni jiray intuu qaadka iska dhaafi oo isbitaal tagay isbitaalka markuu tagayna dhakhtarku wuxuu dhahay ma isticmaali jirtay waxa isticmaali jiray ma xasuusto soo xasuusta lagu dhahay waxa isticmaali jirtay waxba isticmaali jirtay ninka marka dambe wuxuu dhahay qaad cuni jiray waxa la qaadka daawo ku yahay ninkana sokor uu qabi ku noq qaadka hadalay marka anaga hadda waxaan ku filayn cudurka Kenya no istaan soo gaaray sababtoo ah dadka qaadka cunaa saana horta waa qaadka waa ka badbaadaya waxayna sheegeen in jaadkan ay caruurtooda iyo qoysaskooda ku tiirsanayeen ganacsada qaadka ee magaalada Mandheera ayaa warar waxaan soo gaaray in governor his excellency Al Rowan inuu qaadka joojiyo ayaan soo gaartay marka waxaan ku codsanaynaa in arrintaas uu dib ugu fikiro oo dib ugu noqdo maxaa yeelay maamooyinka maalintii mid walba 500 oo maamo ayaa meeshan biil ka soo raasatay waxayna arrabaabeen in arrintan dib looga laabto haddii kalena xal lagu wadi karo la keeno in jaadka la joojiyo marka governor his excellency waxaan ku codsanaynaa arrintaas dib u noqdo cudurkan ilaaha keenay ilaahay ayaa qaadi kara waxa yani qaad la joojiyo iyo bacshar la joojiyo waxa la joojiyo wax ku hara maaha jaadka yimaada Mandheera waxa ku dirsan dadii fara badan kuwaas ugu faa'iideysanaya in ay ku maarayaan nolol maalmeedkooda wax walba ku baxsanaa waxaan ku jirina mar boqolkiiba 14 ana kaada ku xas culimadayna noo joogtaa alxamdulillah culimadayna quraankeeda ku noolna culimadayna aaminsana ilaahay kaayna aaminsana wax jira ma jiraan waxaan arkaynaa mar ay hadda waxa muuqata inuu dhaqan galay hadal uu soo saaray barazabka ismaamulka Mandheera Mr. Ali Ibrahim Roba oo ahaa in la joojiyo jaadka soo gala gudaha Mandheera iyo amar buuxdo lagu istaajiyay isticmaaliska iyo qaadka laga bixisharay iyo hata arinta baabuurta qaadka soo qaado dhan inaan xaaranteena muddo gaaban saako fantastic warbaahinta